masjidkan ayaa dhismihiisa waxaa horaantii sanadkii 2018 ka bilaabay xaafadda horumar ee magaalada Gaalkacyo muwaadin Soomaaliyeed isla markaana kamid ah dadka dayarta ee ku nool magaalada Gaalkacyo ee lagu magacaabo Macallin Cabdikariin Cabdiraxmaan kaas oo sida uu sheegay u adeegsaday bilowga dhismaha masjidkan oo maanta maraya heer gabagaba xoogiisa maadaama uu haysan hanti kale wuxuuna dadka deegaanku ay ugu magac dareen ninkii gaari gacanka masjidka ku dhisay taas oo laga dheehan karo inay ula muuqatay wax suurtagalahayn in masjid sidan weyn lagu dhiso qaab caynkaasa balse maanta nasiib wanaag dadaal dheer kadib uu marayo heerkii ugu dambeeyay Macallin Cabdikariin Cabdiraxmaan oo aan maanta ku booqday goobta uu dhismaha ka socdo masjidkan oo ah meel aad muhiim u ah isla markaana masaajiddu ay ka fog yihiin ayaa warbaahinta qaranka uga warramay dadaalkiisa dheer ee uu soo maray in isaga kaligiisu inta badan dhismaha masjidkani heerkan soo gaarsiiyay isagoo dhanka kalena ka codsaday in laga caawiyo dhamaystirka inta yar ee dhiman ولماذا كوني تواني سيدي نكي أريك وحنا هاي نكي قارق عك بس تكون سجري نكي قارق عك وفرق عاد موجود ساكتين قصدي أنا كلنا واثق أنا لما كنت تواني إلى لما كنت تواني سيدي تواني سقالكي وكسر تكني وعي قارق عيك عك بدنا وكسر تكني وحنا ربا مسجد كي أو قبيلة هنا نمسره مسجد كي وحي كدسنا مسجد كي وحي كدنا إن شاء الله عربنا إلى ما أنت شكله أو توتر كذا شكله أنت هذا متر إنجنيرك وحصو قري أفر كون لحب قول تضباط النسيد رنجي مسجدك أنكو علي سلاح حمدي أفر كون لحب قول تضباط النشانكون أفر كون لحب قول تضباط النشانكون رنجي لما كون لحب قول يكون $10 البابو هذا مسجدك شانكون لحب قول يا لباتن متنالك مسجدك تضبكون يبغول $6 تضبكون يبغول $6 سفيتة مسجد سفيتة شرح قرية على سعره سفيتة شرح مسجد كلا سعره لبكون بقول $19 لا مركا تود Macallin Cabdikariin Cabdiraxmaan ayaa dhanka kale hore ugu guuleystay hirgelinta xarun lagu barto Quraanka Kariimka iyo culumta diinta Islaamka taas oo hadda ay wax ku bartaan caruur Soomaaliyeed Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.